gudoomiyaha degmada Shibis, gudoomiyaha Safiyo, gudoomiyaha guddiga wacyigelinta, gudoomiyaha Shangaani, haweenka, dhalinyarada, kooxda fanaaniinta, agaasimaha xiriirka, kulligii wasiirka dhalinyarada isboortiga Hirshabelle, kulligii waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta bacdi waxaan si la mida dadkii iga horreeyey rabaa inaan halkan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha cusub oo degmada Shibis, Cabdiraxmaan, oo maalin dhaweed aan kasoo wareejiyey degmada Burkina oo runtii uu muddo 2 sano ku dhow uu joogay halkaas oo uu wax badan kasoo qabtay. gudoomiyihii hore walaasha Safiyo caawa idinkaa dareenkiina ku sheegay, uma baahna runtii intii aniga iyo dhagacad waxaa isweydiinaynay xil wareejinadii aad ka qayb gashay hadda ugu dambeeyey maxay ula duwan tahay degmada Shibis. marka shacabka Shibis oo noo sheegay waxay ula duwan runtii waxaan is leeyahay waa Monica waa maamo waa marka saasay ula duwan dareenkiina. degmooyinka ay dumarku joogaan runtii waa ka shucuur badan yihiin degmooyinka kale hadda ay joogaan gobolka Banaadir, waayo waxaa idinka muuqata dareen, waxaad dareemaysaan baahida dhabta ay dareemayaan shacabka degmada degan. hooyana runtii dee waa taqaanaan doorka ilmaha. marka Safiyo waa ku ammaana shaqadii ay soo qabatay caawa runtii halkan wax badan oo aad ogeydeen ama aanan ogeyn ku aragnay runtii waxqabadkeeda. marka gudoomiyaha cusub hawl culus u tahay Monica caawa wax rajaysan, marka waxaa laga rabaa inaa xujada Monica caawa kasoo baxdo, ambalaasyadii iyo degdegiskii inoo dhimaa halkan ku qornaa iyo runtii howlo badana ku yaala inaad maaragtay degmada Shibis usoo dhammaystirto. xilkan runtii waa wareegto, qofka markuu wax qabto muddo joogo xilka waa qor isku dhiib, qof kale walaalkiisa ammaana waxaa la rabaa dadaalkiisii inuu halkiisa kasii socdo. Cabdiraxmaan gudoomiyaha cusub maalin dhaweyd markii aan degmada Burkina joognay waxaan ku arkay oo runtii aan raba halkan inuu ka sameeyo. Monica waxaa ugu timid adiga Burkina waxaa uga tagtay shacabka Burkina waxay samaysteen sanduuq ay ku urursadaan lacagtaas loogu talagalay in looga qayb qaato horumarinta degmada. wuxuu gudoomiyaha degmada ku wareejiyey lacag $30,000 oo aan gobolka Banaadir la siin ee shacabka degmada Burkina ka timid. marka waxaa halkaas ka muuqata runtii dadaalkiisii. waxaan rabnaa reer Shibis, reer Burkina oo idinka fog idinka magaalada oo dad ilbax ah, waxaa idinka rabaa wadooyinka iyo jidadka degmada ku yaala inaad ka qayb qaadataan dhismahooda oo aad jeebkiina furtaan. gudoomiye Cabdiraxmaan asaga laga rabaa inaad gacan adagtiina inta lama aqaan, laakiin gudoomiye Cabdiraxmaan asaga laga rabaa inuu jeebkiina kala soo baxo sidii reer Burkina uga soo qaaday. gudoomiye Safiyo waxaan ku rajeynaynaa horumar. runtiina dadaalkii aad samaysay iyo juhdigii 2 sano aad bixisay halkan aad joogtay waa kugu ammaanaynaa. dhalinyarada iyo haweenka iyo shacabka degmada degan runtii caawa waxay ku muujiyeen dareen aad u weyn oo ay waxaana muuqata dee qof walba oo wax wanaagsan sameeyo in loo mahad celinayo. marka adiga halkaas waa digatay, waan rajeynayaa gudoomiyaha cusubna inuu sii dhammaystiri doono. waxaa la ii sheegay dhalinyarada iyo in halkan ay dhalinyaradu aad ugu xirmeen degmada. gudoomiyaha degmadana runtii waxaa laga rabaa cusub inuu halkiisii ka sii wado. laba howlba degmada waa degmo ilbax ah oo runtii degmooyinka kale ka duwan. waxaanu ku garanaynaa runtii shacabka iyo haweenka iyo odayaasha halkan jooga iyo quruxda xafladda caawa halkan ka muuqata iyo sida wanaagsan oo loo soo diyaariyey waxqabadka gudoomiyaha. marka degmooyinkii kale aan tagay intaas uga duwaneed saan qiyaasaayo. waxaan rabnaa marka in shacabka degmadan degan sidii aad uga qayb qaadan jirteen markay Monica joogtay oo aad ula shaqayn jirteen gudoomiyihii hore inaad ula shaqaysaan gudoomiyaha cusub. Monica waxay tidhi maamanka ahaa adigana aabba laga rabo degmada ka noqotay. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaad dadaalkiinii iyo juhdigii aad gelin jirteen horumarka degmadan si aad uga qayb qaadan jirteen halkiinii kasii wadaan. ciidanka amnigana aad kala shaqaysaan dadka degmadan degan
qalalaasaha ka dhex abuuraan shacabka ama degmadan nabadooda kasoo horjeeda inaad guryaha ka soo saartaan oo maamulka iyo ciidanka booliiska gobolka banaadir aad garab ku siisaan dhalinyarada sidaad garabka ugu siin jirteen markii horeba aad u mahadsantihiin